agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland mudane Cali Xuseen Nuur oo khamiista 19 Noofambar socdaal shaqo ku yimid gobolka Gabiley ayaa kormeer ku soo maray mashaariicaha wasaaradda xanaanada xoolaha uga socda magaalada Wajaale iyo deegaanada hoos yimaada sida xarunta shaybaadhka calafka xoolaha ee banka Wajaale kawaanka qaliinka xoolaha iyo sariimada magaaladaasi Wajaale agaasimaha guud waxa kormeerkani ku wehelinayay isuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Gabiley mudane Cali Bashir gudoomiyaha degmada Tog Wajaale mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xanaanada xoolaha waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay isla markaasina agaasimaha guud uga warbixiyay iskuduwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee gobolka Gabiley mudane Cali Bashir Abdullaahi oo ka waramay halka ay marayaan mashaariicaha wasaaradda xanaanada xoolaha uga socda deegaanada banka Wajaale halkan waa xarunta waxa ku cilmi baarista ama researchka calafka xoolaha ama taranka xoolaha waxay noqon doontaa insha Allah meel magaranaysa hadii jeer magaranaysa research noqoto oo wixii magaranaysa hadii jeer la baariyo xoolaha ama cilmiga xoolaha laga korsanayo halka loo yimaado insha Allah sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Wajaale iyo mas'uuliyiin kale xaruntan waxay noqon doontaa xarun lagu baaro tayada calafka xoolaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo habkeena xoolaha u dhaqan jirnay wax weyn ka bedeli doonta calafka xoolaha halkan banka waxa ku dhaqan xoolo aad u fara badan kuwaas oo u baahan ka warqabka badqabkooga iyo daryeelkooga iyo markasta in la daraaseeyo iyo waxyaalaha calafka kala duwan ay cunayaan in markasta laga warhayo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa hay'adda ujeedada ugu muhiimsan ee qaybtan laboratory-ga loo fuliyo waxa weeye sidii ugu qayb qaadan lahaa muxuu ahaa horumarinta calafka xoolaha tayadiisa baaritaanka caafimaadka guud ee xoolaha guud ahaan baaritaankooda hadii ku deegaanka yihiin ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland oo faahfaahin ka bixiyay kormeerkani shaqo ayaa sheegay in kormeerkani yahay mid ay ku dardargelinayaan hawlaha shaqo ee ay u hayaan qaranka waxay ka mid tahay tani hawlaha wasaaradda amba shaqada aan qaranka u hayno inaan maxaan ku raahdaa aan kormeerno shaqooyinka socda inaan maxaan ku raahdaa aan ku galno ayuu safarka iyaga maanta u daaraa wuxuu markaa laabkeenu qaban doonaa inuu qabto laba shay qayb ka shaqeysa amba lagu ogaado tayada calafka amba for analysis iyo qaybta maxaan ku raahdaa xoolaha shaybaadhkii dhiigii iyo maxaan ku raahdaa wixii qaadayay iyo xanuunadii lagu ogaanay waa xarun weyn markii ay wasaaraddu aragtay meeshan muhiimadda ay leedahay ayaa xaruntan xarun cilmi baadhis inay noo noqoto oo sida wasaaradda beeraha abuuriin ay u tahay meel siirka iyo cilmi baadhis ay noqoto annagana ay tugo jala noo noqoto meesha maxaan ku raahdaa xoola naaxinta iyo calafka aanu ka bilowno annagoo bedelayna nidaamkii hore ee xoolaha aanu dhaqan jirnay ayaa meeshan waxaan doonaynaa inaan ka soo saarno maxaan ku raahdaa formulooyin cusub oo aan xoolaheena maxaan ku raahdaa ku dhaqi doonno waayo meeshan waxaa laga helayaa loodii baa laga helayaa adhigii baa laga helayaa wixii aan xoolo dhaqanaynaba waa meel maxaan ku raahdaa ku habboon Sikriya Nuux Ibrahim codka bariga Afrika gobolka Gabiley